gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Farxaan Aadan Haybe oo soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Togdheer iyo isuduwayaasha wasaaradaha. Kulankan oo ay warbaahintu dibadda ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxa warfidyeennada la hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Farxaan Aadan Haybe waxaana kamid ah hadaladiisa suurtagalnimada sidii loo hirgelin lahaa maxadka tababarka shaqaalaha dawladda iyo maxadka tababarka shaqaalaha dawladda hoose lamaana oo isku mataana runtii dadaal badan bay ku timi dadaalka hormoodu waxa ka ahaa madaxweynaha oo arintaas ay taladiisa ka dhalatay waxaan ku amaanayaa runtii barasaabka gobolka Togdheer Xamse Walaaleeye oo arinta labadii bilood oo dambeysay isaga aanu ka wada soconay sidii hawshaasi u suurtagali lahayd waxa kale oo ku amaanayaa maayarka magaalada iyo gudoomiyaha golaha deegaanka Burco Axmed Muraad oo Hargeysa isku saarano runtii markaan u sheegay arinta ku farxay ballan qaaday inuu deer ku wareejiyo dhismaha dhisan ee aan ku sii bilaabayno tababarada shaqaalaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo sheegayna waa ka sheegay xildhibaan Mubaarak Biddi ay degdeg u bilaabayaan muddada intaan la bilaabin bisha August kowdeeda inta ka horeysa inay deerka dhameystirayaan runtii maxadkaasi halbooliye muhiim u yahay gobolada waxaana isticmaali doonaa gobolada bari saddexda Togdheer Sool Sanaag baan ugu talagalay inay halkan uga faa'iideystaan maadaama maxadkii tababarka shaqaalaha dawladda hoose laga dhawaaqay Hargeysa oo ku sidgnay oo ku lamaanay maxadka shaqaalaha dawladda Hargeysa waxa maanta halkan shalay inoogu yimi safar shaqo gudoomiyaha hay'adaha shaqaalaha oo runtii shaqadaas ay tahay uu socdaa in inoo ballan qaado aan iskana wareysano dugsiga tababarka shaqaalaha oo laga furi doono bisha August kowdeeda gobolka Togdheer dugsigaasi oo tababarkiisa ay ka qayb gali doonaan saddexda gobol ee bari Togdheer Sool iyo Sanaag waan soo dhaweynaynaa waa ballanqaadkii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigii inoogu yimi safarka inoogu yimi Burco aynu weydiisanay waxyaabaha aynu ka codsanay kamid ahayd runtii war aad iyo aad farxad weyn inuu bisha 8aad kowdeeda halkan laga bilaabayo maxadkii qalabkiina uu runtii hayaba oo soo rayo halkan ka ballan qaaday runtii aan ku hadlay magacii degmada iyo kii maayarka oo mashquul oo shaqo ku jooga Hargeysa waan uga mahadnaqaynaa waan soo dhaweynaa waana runtii intii annaga naga soo aadin maayarka sidii ay ku ballameen intii annaga dawladda hoose ahaan nagu soo hagaagtay diyaar baan muddada intaan la furin waa dhameystiraynaa sidoo kale arintii barasaabka halkan ka ballan qaaday runtii idoo barasaabka naga wakiiliyay runtii dhulka waanu kula shaqayn doonaa oo kala shaqayn doonaa in la helo dhulkii laga dhisay lahaa runtii hoteelkii shaqaalaha oo runtii baahi weyn loo qabo waxaan ballan qaadayaa anoo runtii nidaamka golaha deegaanka inuu barasaabku runtii ballanqaadka uu barasaabku sameeyay runtii uu naga wakiiliyay inaanu kala shaqayn doono golaha deegaanka haddaanay oo dhulkaas uu diyaariyo waftigan ayaa la filayaa intay ku sugan yihiin gobolkani Togdheer inay ka hirgelin doonaan mashruucyo Maxamed Wardi Somali Cable TV